kulanti wanaagsan mar kale daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha mudan mar kale waxaan la kulannay oo nasiib u helay gabadh Soomaaliyeed oo ka soo qayb gashay mudaharaadkan ka socda magaalada London ee jaaliyadda Oromia waliba haweenka jaaliyadda Oromia ay maanta halka ku qabteen walaal magaalada ka timid ya Coventry baa ka timid marka kaliya wax Soomaaliya joogan marnay aniga iyo gabdho badan baa yimid marka maxaad u timideen maadaama mudaharaadkan Oromia yahay qadiyadda taageersantii qadiyadda community-ka taageersanaa Oromia saaxiibad badan baan ku leenahay community-ka friendship baan haysanaa isku magaalaan wada deganahay dad badan oo Oromia ah dad badan oo Oromia saaxiibo la nahay waxaana taageersanahay in maaragtay xorriyadooda iyo la daayo shakhsiyadooda dadka la leynayo ayaan la xanuunsanay sidaas daraaddeed ayaan ku nimid banaanbaxa marka dadkaas Oromada ma taqaanaa dhibaataysan yaad ma taqaanaa isku magaalada Galbeed marka sidaas daraaddeed baad aad uga soo qaybgashay dadooda ayaa ku dhintay wadankii haye sidaas daraaddeed ayaan la xanuunsanay sidaas daraaddeed ayaan u soo raacnay oo maaragtay inaan tusno inaan walaalahood nahay inaan garabkooda mar walba nahay inaan kala maarmin oo laba jiiraan nahay sidaas daraaddeed ayaan ku caawinaynaa usoo bal dadka Soomaaliyeed waxaad u sheegtaa Oromadu nin Oromo Itoobiya hadda xukuma maxay raadinayaan xorriyadooda abiya way ka weyn tahay nacam haye waxay raadinayaan xorriyadooda inay waxbarashada noloshooda hore u horumarsadaan inay xorriyad ku noolaadaan inay dad jiro oo weligood jiri ahaayeen Oromia haddana raadinayaan xorriyadooda ma fahanti oo loo diidan yahay xorriyadooda inay hore u socdaan marka waxay rabaan laga haystana ninkii xukumay yani oo ahaa xorriyad u dagaalanka wadankooda oo uga soo haajiray America inuu dadkooda xorriyadooda soo celiyo sidaas daraaddeed ayay ku boorinayaan ummadooda inay maaragtay garab taagan yihiin oo maaragtay dad jiro oo qadiyadooda rabaan inay kor u qaadaan annagana ku taageersan inay dadkooda kor u qaadaan xorriyadoodana helaan dadka Soomaaliyeed maxaad u sheegi lahayd dadkan Oromada dad Soomaali waxay moodayaan inay Oromo rabto inay Itoobiya xukunto laakiin hadda waxay noo sheegeen intooda badan inay doonayaan wadan la yiraahdo Oromia oo madax bannaan xorriyadooda oo Itoobiyadan iyo waxaan ay ka tagaan marka dadka fikirka aad ku aragtay Oromada maadaama aad isku magaalo ka timideen ma waxay aaminsan yihiin Itoobiya mise Oromia ay aaminsan yihiin Oromia waa qadiyadda ugu weyn ee Itoobiya degto haye oo laakiin loo diiday xorriyadooda haye oo wax walbana yaqaano صح qurbaha iyo adduunyada dhan tacliimo ku bartay oo doonay dhulkooda inay dhistaan dhulkooda ku laabtaan xorriyadooda soo ceshadaan ilmahooda dib wax u baraan xorriyadoodana la siiyo freedom u noolaadaan dad badan baa waxay leeyihiin nin Oromo Itoobiya xukumee Oromadu maxay roobka la taagayeen iyo la qaylinayaan Oromadu waxay xorriyadooda hadday heli lahaayeen maanta meeshaan may taagnaadeen haye dadka la dhamaynayana waa Oromia صح dadka dhibaatada loo geysanayo waa Oromia carruurta yarartoo la leynayo waa Oromia waxa lagu leynayo in xabashi baa la rabaa gacantii loo geliyo ayaguna waxay doonayaan xorriyadooda maadaama ay inta ugu qadiyadda badan waddanka ay yihiin haye marka waxaan raacsanahay inay xorriyadooda la siiyo freedomkoodana u noolaadaan waddankana Itoobiya waa qadiyado badan qof walbana xorriyadiisa inuu helo Soomaalidooda hesho Itoobiyaankooda helo Oromiyadooda hesho ayagoo isxukumaan sida America 50 country oo isku jira waddanka xorriyad buu wada leeyahay laakiin neemka wada one name laakiin qof walba marka xorriyadiisa la siiyo economic wax walba way wada heshiin karaan laakiin aniga waxaan rajaynayaa in xorriyadooda la siiyo saasan Soomaalidu sheegay dadka Soomaaliyeed haddii Oromada ay Itoobiya iyo qoladan Abiy Ahmed wato ay ku adkaadaan dagaalkan Soomaali maxaa markaas iyadoo xuquuq ma heli doontaa wallahi ani waxay la tahay yani Soomaalidu horta waa wadan gooni ka ah qof walbana qadiyad buu leeyahay Soomaali dhinac ma u taagan tahay Oromiyana dhinac ma u taagan tahay Itoobiyana dhinac ma u taagan tahay صح yani wax isku xirmi kara ma aha haye laakiin dad wada degaan ay qabaan Itoobiya Soomaali Itoobiya Oromo xuduud baa u dhaxeeya u wada dhaxeeya haye yani waxaan taageersanay in xorriyadooda loo daayo oo qolo waliba ay walbana ayada ismaamusho freedomkooda u noolaadaan
لكن إلا إذا ودك هل إثيوبيا إلا هل علنية هل محارة لقوها ضياء ما يودك وين نيشن هذا لكن فريدم كان لو دايو إنه يقص حكومات إنه جامعة هرايستان إنه بوليس كود الليين إنه حرية دور هايستان أو مرحبا marka laakiin oromadu waxay leeyihiin Ethiopian nation la yiraahdo waana lagu dhibaateeyay marka ma haday freedom kooda helaan hada asalaamaaleykum khayr tuma haday freedom kooda helaan sug haye haday freedom kooda helaan Ethiopia way ka koreen in yari sug marka hayga tagin magaca Ibrahim ma Soomaali ma tahay may Oromaay Oromaay Soomaali aad ugu agtahay Soomaali waa haye ma adiga waa isheegay dadku laakiin aad iyo aad waayahay maanta magaalada ka timid waxa ka imaaday Manchester baa ka timid Manchester idinka waa haystaan mareynaya Manchester oo Bolton haye aad waayahay maxaad u timideen maanta wallahi maanta banaan maanta wuxuu ahaa mid oo dumarka u khaas ah haye anaka marka waa ay ina isku gargaaro oo saaxiideen bas oo imaan codka haye marka hadalka maanta ku saabsan waa banaan baxa oo lagu sameeyo government oo Ethiopia haye marka ilaa hadda muddo 6 usbuuc waa bixuna 6daas usbuuc hadda kana u bixayna waa midda Ethiopia government dhibaatada meesha ka socoto oo ormada lagu sameeyo waa adduunyada meel walba la socdaa banaan baxna inta kale kuma ma aha America waa laga buuxaya Australia waa laga buuxaya meelo badan oo far badan laga buuxaya maxaad u banaan baxaysaan marka nin Oromo Ethiopia xukuumadii kuna Oromo tiin maxaa waa sidees xagee wax ka qaldan yahay صح marka taas wallahi ninka hadda xukuumada waa Abiy Ahmed qofka halkaas oo meeshaas saarana waa ana kale awoodina anaka awoodaas siinay wallahi qofka marka waxa la qof mar haduu markuu awood yeesho ayay runtiisa soo baxda intaas ka hor waa wax walba beenbeen marka hadda awooddaas markii siinay ayuu nagu soo iyo idin khiyaamay صح marka sheekadu ma Abiy baad ka tuureysaan meesha mise qadiyada Oromiya waxa weeyaan ma Ethiopia rabtaa inaad xukuntaan mise inaad xorowdaan صح ma hadda sheekada Abiy kalna ma Abiy tan uu sameeyo waa wax oromada lagu sameeyo 100 sano dhibaatada ay ka soo mareen waa dhibaato shalay bilaawatay ma waa dhibaato 100 sano oo bilaawatay 2014 ka bilaawatay xiriir baa dhexeynay Jawar Maxamed baa imaaday oo asagana social media oo MN ayuu dhibaatada oromada halkaas ka bixinayay oromada markay aragtay freedom banaan bax wadanka ka baxay oo dad intaas lagu dilay ayay aakhiritaanka Abiy Ahmed la saaray Abiy Ahmedna asaga waxay amxaarta iyo Tigrayda intaas sanadood ay lagu wadeen ayuu asagana nagu bilaabay marka hadda waxaad leedahay Ethiopia waa meel dadka lagu dhibaateeyo magacan oo xuquuqdanadii aan gaar u raadinayna yani Oromiya xog waxay soo ridanaysaa xuquuqdeedii صح هذا الدين كذا هذا أركتي عالم كذا فإنك الصعوبة وهذا بلاك لايفز متى هذا أركتي وحاصل له ريفوليوشن واحدة مرة قفل بقى حق سواء إنه قدر على تمو مال والبقفك رايت كيس anywhere that people can't exercise their rights as human beings مرة واحد إلى قفل بقى أنا صومالي هاتيك صومالي نفط غدا ك وحاله هذا أقدره إذا كنا كعة نلا حريق banaan baxa kaalay anaga la soo baxa intaas adiga aad ma santahay wiilka dhalinyarada ee ka yimid magaalada Bolton ee Great Manchester gabadhii Soomaaliyeed baa ku soo noqonaya gabadh kale oo Oromaana way la joogtaa this is my friend gabadh Oromo sabti ay mareebali ma tahay mooyaale okay waayahay Jawhar hadii la soo daayo Ethiopia ma raacaysaan مرة عينا هيا يا marka waxaad leedahay Oromo way ka weyntahay dadkaas haye ka waran hadii Jawhar Maxamed Ethiopia loo dhiibo oo Ethiopianimada ma qaadanaysaan ma qaadanaysaan meeraad go'aan martaan haye wadanka annaga iskale ma jirto uriya annaga rabna hadi marabno insha Allah annaga sameeysanaysa insha Allah hay gabadha Soomaaliyeed oo kamid ah dadka kaalmeynaya Oromada oo runtii magaalo fog iyadoo nooga timid Coventry gobolada dhexe UK
midland gobolada dhexe marka dadka Soomaaliyeed waxay u arkaan dadka Oromada hadda dad badan waxay aaminsan yihiin inuu dadka laga xidhxidhay Jowhari ay Oromada u kacsan tahay arrin qadiyadeed baa meesha ku jirto Soomaa نعم يا نعم هيا جواري وشقيا ددكيسا شعبكيسا وشقينايه هيا madaxweynaha muu soo bixin lahayn ra'iisul wasaaraha muu soo bixin lahayn aduuna Jawari ahaan lahayn Jawari ba aad u sibood gareeyay markii dawladda qabsanayay هيا oo xukunka kula jiray هيا kadib uu ka saaray siyaasad ahaan sidaas daraadeed baana lagu khalaafay wiilkii la dilay daraadeed ma arrintan oo dhan ka kacday wiilkaas oo halgan Oromo ahaa halgan Oromo ahaa dadka baraarujiyo oo heeso wiilkaas markii la dilayna la yiri wiilkaana la ka dilay xaqiisa hal la keeno markuu Jawari yiri oo Jawari hadlayna Jawari waa la qabtay iyo ninka kalabo waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaad u sheegto waxay ku moodayaan dhulka la gumaystay Soomaaliyeed inaad ka soo jeedo in kasta Soomaalidu ay isku mid tahay Muqdisho iyo Jigjiga nacam nacam ma marka ma Jigjiga ka soo jeedaa mise Muqdisho Jigjiga يا Jigjiga هيا Jigjiga anigu deesan baan Muqdisho iyo Jigjiga waa seef laakiin Muqdisho aad ku dhalatay مقدشاوي وي أنا يدو مقدشان كنفت لكن هذه قضية وهل هل وي شنطة فراد مربو هذيك أي كتوبته هذيك جبوتي شوبته هذيك هرجيس شوبته هذيك أي شوبته شنطة فراد وهل سومالي واسو كامل سومالي واسو كامل هذه قبل أسوار قضية هذا ما تهلك وحوت أنتهي إن دتك ظلمك لغة هي أوروميا إن جرب استاكتو هذه قضية وضعنا وقضية دينا اسمه قضية بان هاي هذه إيجا wixii soo gaaray inaga weyna gaaraya marka aad iyo aad baad mahadsan tahay maxaad kula dardaarmaysaa dadka Soomaaliyeed aan kula dardaarmayaa inay walaalahood sibood gareeyaan oo walaalahooda garabkooda istaagaan sax oo ogaadaan abi inuu yahay nin Oromo ah dadka Oromaana haduuna caawinina inuu ummadda dhan caawinin sax ha ina taasan fariintaas u mar faraya abi aad iyo aad والله سنة لو سعودية جواري هذه أضل ما سنتهاي هاي سروا صاحب يا الأبان دي سلام يا ولا مقعة محمد أمين حاجة كتير مقالة ده مانشستر هذا لندن باتشوكا مانشستر لوس عنيو أفر ساعات بعد كتير أنت ما حصل سفرتين أنت عدن أنت لو حوصل سفرتين كسعودو إثيوبيا هنا ودنك واحد هذا كسعودو دد دلايو دد أو واحد سبعين أو إسكام مسكين waxaas daraadeeda dhibkaan marka u imaanay London maanta joogna ma Soomaaliya mise Oromo aniga Oromo ahay laakiin dad Soomaaliya la soo koray xogaa af Soomaaliga iyo mooyaa ba alxamdulillah wali af Soomaali waa koodi kale ma wad fiican tahay aad u fiican tahay mudaharaadka waa gabdho kaliya waa away raggi isagu maar maanta waxa lagu talagalay inay gabdhaha kaliya soo baxaan barnaamijka lagu talagalay sababtoo ah gabdhaha waxay adduunyada gabdhaha xoogaa waa dhaxgaliya marka waxa saas u daraadi u talagalnay insha Allah waana mid kalena waa sameeyna insha Allah Ilaahay yiraahdo hadii ninkan Ethiopia xukuma maanta waa Oromo maxaad ku diidantiin horta Oromo bas in la saas wax ma tarayso ninkan haduu ata Oromo yahay magac sheeganayo hadda waxa ka socda Ethiopia wax qalad ah qof kasto oo muslim ah وفي فيديو فيديو أو دلما كسعده وده دلايو هذا أوجدت لما أمس كرهت إيه بحياة دد بدن إمراي ودد مسلمين سومالي دنيا أو يوث كا هدي إمانة وحان أدب النص بري إنك صوت عكران مرك إن شاء الله ونوحا ويدينا إن سومالي يوث كله أو لنا حري جران وحان إلا سكفر صدماها بلدك صعدت إذن بري ويسوق قاري كرتا أنت صار هذه مركا أردو ما أبي جديد بقى مسوي إثيوبيا جديد. أنت أقول بدنا أبي جديد دورت. إيوه وحنا كسعود مليك السيستم مليك الصعود وهذا إنه السوعد الربا وحنا جديدة وأنت أقول بدنا أنت سواي. إثيوبيا نه هدي أو سيستم تكسعته أنا إثيوبيا أو ساس كله مرة منه. إثيوبيا نوع سكله أو ضد هل قبيل بس أما محارب بس أو وحلو قبل أيوه ورمضان يصير واحد ربع سبعين أيوه إثيوبيا نوع سكله مرة منه.
taas daraaddeed waa waxa abi u diidanahay waayahay oromo diyaar ma tahay inay xorowdo oo calankeeda qaato oromo republic noqoto diyaara u nahay xiriirkaana ma joojinayo ilaa abi meesha oo ka tago abi iyo wixii oo ideologies oo systemkiisa ku socdo kulli inay inta meesha ka tagaan mar dambo wixii hadda hore nagu dhaco kale mar labaad ma nagu dhacayso waa iska ilaalinayna hadda ka bacdi marka waxaad leedahay intii hore waxbaan ka barannay khalad dambe ma gelaynaa khalad dambe waa iska ilaalinaynaa khaladkaan qof kasta khalad ugu gala abi wuu nisnay horta awal abi nin oromo hadduu ahaan lahay dhiigga meesha u baxa oromo taa imanayo hataa waxa u ahaan lahay laakiin waxa u jeednaa abi inuu nin oromo ay ahayn oo qof meel kale ka socdo oo oromo dhan wata dan ku lahayn inuu dhammeeyo oo horta usoo billi kale inuu soo celi rabaa marka mudaharaad kale ma jiraa maalmaha mudaharaad ma la joojinayo mudaharaad wuu soconaya haddii abi ilaa abi meesha joogo mudaharaad ku soconaya ka warran hadda waddanka oromada gudihiisii masiib uu xidhan yahay jidadkii dukaamada inta badan horta ilaa hadda jidadka way xiran yihiin shaqo wax la jiro ma jirto dadka dhan mudaharada ku jiraan ilaa joor maxamed iyo baqala garba iyo shibid galata iyo shibid galata inta kuwaas inta ku jiraan prisonka xiriirka ma joojinaya joor maxamed iyo baqala garba iyo ku xiran ila sida joornal sidayna lama joojina xiriirku si soconaale fartan aan sheegaysaa maxaarka xabad waxaan soo qoray هذا dadka ummadda Soomaaliyeed maxaa ka codsan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa horta youthka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa waxaan anaga 21st century joognaa kuwa especially kuwa joogo Ingiriiska kuwa Mareykan joogo waxa dad imanayo nobody will be happy about this waxaan codsanayaa in la soo baxaa mudaharaadka oo la qayliyaan oo waxa dhan dibkan uu socdo Soomaaliyeed uu ku socdaa Ethiopia ku socdaa Soomaali naftigeeda Ethiopia waxa ku geysta way yaqaanaan in lagu fiirsada ma ficno dagaalka isla galno iska celino Ethiopiaanka iska celino naftanya kuwa loo naftanya inaan iska reebno mooyne wax kale ma noo hareeno iyo Abi Ahmed iyo wax la socda inta idinkeena soo dhaw aad iyo aad baad u mahadsantihiin wiilasha dhalinyarada oromada runtii sida fiican fariinta fiican diray bal aadu maxaa ugu dambeeya oo u diraysaa Soomaalida adiguna wallahi Soomaalida iyo oromada waa walaalo nagtaas waa wax xaq ah oo oromada garanay Soomaalida garanay marka hadduu oromada hadda dhibaatada waxa badanka ummadda ay ku socoto waa oromada Soomaalidana in kasta ay ku sii badan laakiin walaalka hadduu ka dhaawacmo waa adina inaa la danqatay Soomaalida hadda maanta hadduu wax ku dhaco oromada inay la istaagaan waa anaka waa marka tan aku leena Soomaalida waa dhibaatada oromada ku socoto intay soo gaarin ka hor ina hal intaan qono aad ummadda oo garab nasiyaan ummadda oo hadda xaq daradan ugu wado inaas ka xilin intaas baa Soomaalida ka codsani banaan bixina wali uu sii socda ilaa tana muraadkeena ilaa aan loo ka gaaro marka taas daraadeed banaan baxada Manchester madu ka soo socda London kana amxaarta taariikhda soddon way baxayaan marka ay ka baxaana anaka waa ka hortageena amxaarada anaka waxa uu naqaanaa cadowgeena waa dad oo intaas sanadoodan oo lagu wadeen xaq daro markaas taariikh soddon anaka diyaar baan ahay haddaan la soo qadgalaysin Ethiopian Embassy-ga Ethiopian Embassy-ga daratan ka dhacdo waa la socotiin marka insha Allah nala soo qabtala soddonka miya soddonka August soddonkan oo August sabtida mise hadda ay tahay ahuba markana ka soo qadgala insha Allah maalintaas baan saarka aad iyo aad bay mahadsanyihiin wiilashaas dhalinyarada ee oromada intaas ayaa ku soo koobaynaa waad mahadsantihiin aad iyo aad waad arkaysaan dee qolada qadiyadooda u istaageen meel fiican bay wax u marayaan meeshaan maanta wacdaraha ka dhacay gabdho Soomaaliya weli rag ma arag laakiin gabdho Soomaaliya badan baa yimid weliba gobolada ka yimid kala soo qayb galay oromada mudaharaadka waayahay waad arkaysaan meeshan maanta waxaa ka dhacay mudaharaad haween
boqolkiiba 95 haween ahaa marka waxaan weydiinay maxaa dumar kaliya u barnaamijaya waxay dhaheen wadamada caalamkan hadda horumaray codka dumarka ayaa loo tixgeliyaa marka sida daradeed dumar kaliya maanta si qayladooda meel fog looga maqlo ayay dumar kaliya ugu mudaharaadeen maanta hadda way kala tageen waa raaci u dambeeyay baa hadda taagan oromo waxay u guntay waxsan muuqata xuquuqdeeda ay u guntatay waa ummad in badan la soo gumaysan jiray haddana u kacay sidii ay ku heli lahaayeen xorriyadda ka maqan iyo xuquuqda ka maqan intaba waxaan weydiinay ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa nin ka soo jeeda qowmiyadda Oromada maxaa idinku kalifay inaad wiilkiina ka hor timaadaan marka sababo badan bay sheegeen oo runtii macquul ah marka waraysigan saxaabta u dhaafay waxa ayay daawan doonaan daraadku sii kala tagaya waad arkaysaan waa jaaliyadda Oromada waliba ururka haweenka Oromada ee UK oo sida loo sheegay goobta wacdara ka dhigay anagu maana la soconin laakiin barnaweyd baa goobtan anagoo socdaal ku soconnaa magaalada safar dhexdeeda ayaan la kulannay marka halkan baan galnay kadibna waxaan jeclaysanay inaan bulshada la wadaagno mudaharaadkan ay ku raadinayaan qowmiyaddan xuquuqda iyo xorriyadda ka maqan haweeneyda calankeeda la taagan ad arkaysaan ummaddu hadday aaminto awooddeeda hadday aaminto iyo xuquuqda iyo xorriyadda ay leedahay way guulaysanaysaa waanu sii baxnay marka khayr baan idin rajeynaya haye waxaad u noqonaysaan Manchester 4 saac baad sii soconaysaan marka 4 saacadood baad soo safarteen 5 saacadood yaase garabkiina allaha galaya FIFA Oromia هاي هاي هاد ما سنتي هاديات هاي